wadamada gartay gobanimada yadaakar waaqsada xornimooyina gaarugooy kaygay kastee guushayada jecel abaal guunahban gaarugu hayaa abaal guunahban abaal guunahban gaarugu hayaa midku gaasiro guushaada necay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي سو dhawaada mar kale muuqaal cusub waxaan joognaa bartamaha magaalada Hargeysa khayriyeeda magaalada Hargeysa oo ah halka ay bulshada reer Hargeysa ama Soomaaliland ay isugu soo baxaan xilliyada munaasabadaha gaarka ah. Maanta waxaan mikrofoonka la dhexmari doonaa shacabka reer Hargeysa oo weydiin doonaa diyaar garowgooda ku aadan 18 May. صاحبي soo dhawaada haddaad ku cusubtahay halkan subscribe saar saaxiibadana la wadaag. صاحبي soo dhawaada gadaasheeda waxa taagan nin kamid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa halkan oo ku iibinayo calaamada timirta Soomaaliland calankan oo ah calanka saddex midablaha ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland walaal soo dhaw adoo magaca ku bilaabaya waxaan joognaa khayriyeeda Hargeysa waxaad iibinaysaa calaamada Soomaaliland calamaantan xilliyada 18 May aad loo iibsanayo maxay haday bulshada Soomaaliland ay ugu talagaleen hore inay iibsadaan calamaanta 18 May horta imika la gaaray waqtigeedii laakiin waxaan u malaynayaa dadku way soo diyaar garoobay intii hore waxa iska ahayd wal seegay dadku bal soo gashay iyo indhaha caalamku inay siyaarkan waxaan la yiraahdaa dabaaldag weyn ciid saddexaad Soomaaliland inay soo socoto laakiin imika bilaabmaysa insha Allah taala horta maanta ma kooban noqoto way iibsanayaan laakiin ma karaysaa dabaaldag intii weyn waada ya wuxuu baahay imika intii weynada laakiin wixii hore wal si tuseen dadku baad waxa la siyaarkan baad laakiin imika waa la iibsanay calaamada saaxiib wanaga ku salaxay wada aragtaa adigu imika marka waxaan leeyahay ku soo yaacaan calaamada saaxiib iyo dadkuna lacagta kala gabanay waxa la iska dhicinaya dadka calanka buluuga sida iyo gogarada buluuga iyo xaasuma marka hal iska soo gaaraan leeyahay waa hayada calamaanta soddonta la shacabka Soomaaliland carwo miro wala meertaydana carwo miro wala way halkan aad uga baaqaysaa shacabka dhalinyarada iyo tacliinta waa salaam wixii garanay muuqayga ma halka ka salaamaya soo dhawaada maadlay aad iyo aad ma santaa walaal soo dhawaada magaca ku bilaabaya waxa nagu saadan maalmaha 18 May ee sanad walba Soomaaliland xusaan maalinkan waxaan malnayaa inuu diyaarsantay oo calankaaga baa sidato maxay kaaga dhigantay maalinka 18 May nagu saadan horta walaalde maalin weyn bay dhigantay maalin weyn calankaas oo ku dhashay oo ku barbaaray wax ku bartay waxaan ku wixii dhigayay inaad wax weyn oo qaali ah calanka iyo dalka inaan ilaashino waa muhiim waxaan ku dalka iyo dadka inaan difaacno waxaan ku ama barabushan ku difaacno ama ku difaacno xoog ama xeelad ama si kalaba dalka dadkana ilaalino insha Allah sax maxaad ugu baaqaysaa shacabka reer Soomaaliland ee aan ka daawanaya waxaan u baaqayaa horta marka koobaad si nabadgelyo oo ilaaliya si nabadgelyo u dabaaldega nabadgelyada noo ilaaliya qof walba security ahaado halkiisa security ku ahaado oo dalka dadka ka difaaco dhaqdhaqaaqa la socdo dhaqdhaqaaqa wixii wax dhimaya dhaqdhaqaaqa la socdo insha Allah taasaan rajaynayaa insha Allah aydiin miga loo diyaar garoobaad leedahay waxaan leeyahay aydiinadina u diyaar garoobo waa ciidii Soomaaliland waxaan ku waa waajib weyn oo diyaar garoobo oo waxaan ku dhiigan calanka waa loo dhintay rag baa ciid hoosteeda u galay rag baa imika u dhintay rag baa la u dhiman doona macad haddii xagga Allah ka noqoto laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si nabadgelyo Ilaahay nagu gaarsiiyo si nabadgelyo Ilaahay nagu dhabayo waxaan ku meedeedana inagoo qaramada midoobe ka taagan calankeena ayaan insha Allah rajaynaynaa walaal soo dhawaado magaca ku bilaabaya maalmaha soo socda waxay nagu saadan 18 May oo loo xuso sanad kasta qaranimada Soomaaliland maalmahan adiga shakhsiyan maxay kaaga dhigantay walaal waan dhawahay magacaygu waa Xamdi Xasan Ibraahim waxaan leenahay sidii loo dabaaldegay si ka daran baan dabaaldegaynaa inkastoo aan ahay anigu gabadh macaarada laakiin haddana si wanaagsan baan dabaaldegaynaa waxaan rajaynayaa ID-meeda kala ka shidnaato waa ka sabay tiimay baan ku leeyahay walaa waxaad ugu baaqaysaa shacabka halkan naga daawanaya shacabka waxaan leeyahay soo yaacdeen magaaladu waa magaaladeennii waddanka inaga iskale dawaan dabaaldegaynaa hees qaranka ma noo qaadi kartaa may walaa heesas kuma wanaagsanin marka macaaradii maxaafad waxa leedahay hala dabaaldego macaaradka waxaan leeyahay waddanka inaga iskale waa inaan dabaaldegnaa sidoo sheegay suldaankeennii sabaysde waa inaan dabaaldegnaa walaa laakiinse waddanka waa la wada leeyahay calanka reer yaxa shaqeyn ma calanka qarnimada shaqeynaya calanka Soomaaliland baa shaqeynaya walaa aad iyo doon ma santo iyo hawada gaaruliheen nimcada gooyahaga calankoodkaaga sudan qalbiskuma elina geeli buu ku yimi imisa go'ay
وقد قالي هلي النساء وقاي وقاي وقد قالي هلي كيهو هو ذكروا لهين على قويها على قد كاغا سودان soo dhawow walaal magacaaga ku bilaabaya waxay nagu soo aadan maalmaha 18 May ee Soomaaliland sanad walba loo dabaaldego sanadkan muxuu kaaga dhigan yahay adiga wallaahi sanadka wuxuu iga dhigan yahay sanadee horta la mid ah inuu noqdaan rajaynaya meeyadii hore inkastoo weli ayna bilaabinba dee maanta ka weynaa tahay meydii laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in loo soo wada diyaar garoobo meydina dhammaan reer Soomaaliland gobol kasta in laga dabaaldego goboladii waaweynaaye aad ku dabaaldegi jiray sanadka malaha way seexdeen ba soconayaa wax ku dhacay garan maaye لكن إن شاء الله واحد رجينا إني ميدي كسر قريب قلنا أي سود بعدين أو خيرية سود بحيان قبل الله لقى سود بعدين ديار جروبان ما أنت حسك استيتكمي ها ما أنت استيتكمي حسك استيتكمي ومعلمي نوع قاليا ومعلمي نوع عيدا وقالة إن أدي أدلو صوت أجيبه صوت بعدين وكذا سام محافظي معارض عن لوكل إيه إن شاء الله حيسلي إن تدخل بدنا حيلي معارض ما نايو بدنا مركب كوفنتيه ده أركيد معارض ما نايو أنا معارض أتانا معارض نايو وحب ميديا حاجة قيو قلي مني عشان الله عند الله يكسر قيو كلا أنا قوم معارض هو أنا قد نحتاج ما تخيل معارض يما حافظ بقى كسر قيو كلا ها صاحب واحد تاني ما معارض يجي محافظ ما كلا رها ترى تي لا صار دتي واحد صار دتي تتكيني يا قبل ما أورن شيء روحي شهيد كيو راوعي هالجي كيو يجي جهاد كيو أنت هو يرد ماتيو راوعي دتك جاي سيد دمست جيدها عمل الله عمل دادر على يهود دمسكي دير كمادي من محاديق لقو قوي محادقر لقو قلي دنيري يوايل يجيس ديلمبا على يهود كجوكتا marka soo qayb galaan la insha Allah idinka aad baan salaam ya dood ma san sax soo dhaw saaxiibada magacaaga ku bilaabaya maalmaha nagu soo aadanay 18 May aduu shakhsiyan muu diyaarsan dadka qadato kulli calanka waa sidatay balkoran magacaygu waa Cismaan Aadan Cismaan waxaan leeyahay 18 May waan u diyaar garoobay si wanaagsan si saayidan ugu diyaar garoobay waxaad ugu baaqaysaa dadka waxaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay dhammaan bulshooyinka ku nool Soomaaliland daafaheeda haloo diyaar garoobay 18 May oo maantii qarankeena oo maantii isla ismuujin jiray hal ismuujin leey walaal soo dhaw adoo magacaaga ku bilaabaya waxaan joognaa khayriida magaalada Hargeysa waxay nagu soo aadan maalmaha dhow maalmaha 18 ee loo xuso sanadkii mar loo xuso maalmahan maxay adiga shakhsiyan kaaga dhigantay walaal waxay iiga duwan tahay maadaama aan dadka ku soo koray calankan oo ku hoos koray aan ahay waxay iiga duwan tahay waa maalmaha kale iiga duwan oo ku faraxsanahay mar walbana aan xuso waxaan rajeynayaa ummadda dhammaan Soomaaliland inay si nabad ku xusto waxaan insha Allah rajeynayaa inaan nabad ku gaari doono inta ka sii dambeysana waxaan leeyahay ummadda meel kasta ay joogaan waxaan rajeynayaa inay nabad ku xusaan taas aan rajeynayaa walaal waxaad ugu baaqaysaa shacabka daawanaya waxaan ugu baaqayaa meel kasta aad joogtaan dumar iyo waayeel carruurayal dhammaan waxaan leeyahay inaad ku xustaan nabad iyo caafimaad baan idin rajeynayaa saasaan idin leeyahay dhammaantiin calankan aad iibsataan dhammaantiin oo lacagta aad u hurtaan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad adiga TV-gana waa idin salaamayaa dhammaantiinba leeyahay ummadda Soomaaliland calankeenu waa muhiim meel kasta aad joogtaan waxaan idin rajeynayaa inaad nabad ku xustaan nabadna ku xusta ciidamada qarankana waxaan rajeynayaa inta iyo in ka badan inay waddanka ammaankiisa sii xoojiyo waxaan leeyahay guul iyo gobonimo adiga goyn u galbaday kaniye cawri igaga gori